ما بلا ها horta nin dhalinyaro sports ah wadankii ka ah ma garatay WhatsApp ka soo ilaawo ma xirin fucking code ma la maqlaa codkayga ma la maqlaa mise earphone baa gastaa لا لقوا مغلا aduu bishii saddexaad dhamaadkeeda waa wadankii ka ma garatay وايه daa wadanka imi dhalinyarta soo taariibtay oo xaggaas taariibka soo aaday kamid ahaa wadanka markaa ka soo tagay hadiis baa diyaarad ka soo raacay Gondar meesha dhaan markaa ka soo baxay waa waxa dhacday laba gabdhood baa meeshaas ka soo raacnay labadii gabdhood markaa meeshaas ka soo raacnay waxa soo wada marnaa haddana xuduudka xaggaas Itoobiya iyo Suudaan Soomaaliya maqal meel matama la yiraahdo oo xuduudka Itoobiya iyo Suudaan waa waxa dhacday baadana waxa ku wada kulanay gabar horta gabar uur labay ahayd وايه gabar uur lahayd meesha markii waxa laga wada cabaa waxa meesha aan ku wada kulanay waxa cabaa biyo qofkii soo tahriibay baa garanaya yar hada farxaan dhaano in badan arinta wadaagayno gabadha minaal ay wada hadlaan baa soo maray meesha markii waa meel biyaha waa la qoday biyo wasakh iyo waxa laga cabaa waa la nadiifsadaa meesha biyo ku wada cabnay biyo u dhacay biyo goorta siiyay gabadha waa arkay markay inay uur leedahay dadku markii waa laba dumar dadna waa dad uur ka qarsada dadna waa dad uur ka qarsan gabadhu markii dadka uur ka qarsada bay ahayd marka fadhigeeda ka dareemay inay uur leedahay oo dhowdahay cagaho bararan waxa ku yiri maxaa dhacay oo soo tahriibiyay waxay u taabo duruuf ay soo tahriibisay waxa ku yiri misaas ahaa waayahay magaceedii waa weydiiyay hadalkii markii iska kayso xid arrimihii markaa ducaynaan ka wareysto dhoo maxaa dhacay maxaa ku helay ilaa qofka markaa wada tahriibisa waa la xawaa yarka fursad soo heshaan waqtan kadib waxa dhacday hadalkii markii soo gabagabeysay oo duruuf ay u soo gabagabeysay biyihii baa siiyay biyo madaxa ugu qoyay waa soo kaxeeyay gaarigii baa saaray marka dumarka iyo ragga isku mid looma kaxeeyo dumarka bajaaj waxa lagu kala kaxeeyaa oo baabuur baa hab meel baa la mariyaa ma lugayn kadib waxa dhacday markaas haddana waxa dhacday waxana la keenay meeshii booyada iyo laga raacay la suuq kaaya keenay meel dhow meeshii waa kooda kulanay gaari baan la soo saaray marka dadku markii soo tahriibiyaan dadna booyad baa la soo saaraa dadna waxa la soo saaraa gaari waaraada oo dad 60 iyo 70 iyo gaari baa la isu keenaa oo yaani kala xirooyin oo kala qayb marka waxa dhacday marka meesha soo raacnay annagu in badan de gaaja is arkaysaan rafaad baa is arkaysaan cunada xagga Itoobiya laga isticmaalo laftirkeeda ee dadka dhalinyarada Soomaaliya ka timaaday ma cuni karaan marka waxa laga yaabaa in dadkii ay qadaan aysan cunno cunin wixii cunadiina nacfi uma laha moogta hadda si canjiro iyo kale waxyaabahaas oo kale dadaan u baran baa jira kadib waxa marka maalin aanu saarnay gabadhii meeshii ku dhex foolatay hor baa qabtay goortina war qabtay way foolatay yar dhalinyaro ay hadda agteeda taagan baa isla soconay isagu markaa nala socday hadda dhowr dhalinyaro baa gurigooda deganahay laakiin asaga xaggaas iska soo raacnay asagana marka dhalinyartu waa la kala kaxeeyaa qayb waa la soo kaxeeyaa safarka ku soo diraa qayb waa la reebaa dad kale la sugaa waxa waa la isku aruriyaa dadku waa la isu diiyaa meeshii markuu ku dhex qabtay booyadu ku dhex qabtay gabadh Itoobiyaan ay nala socotay oo waxaan taqaanaa oo umeysa ahay dadka Itoobiya ka yimaadeen xagga dhalmadu way naga fiican yihiin adoo alcamu yaan sheeka badan kugu daalay waxa dhacday gabadhii umeysay anigana marka gadaal baan inta Soomaalida ah gadaal baan isla kaay firiisay booyadu hore iyo gadaal iyo dhexweyle markii gudaha loo galo xogaa bay kor ka dulbuleeshaa loo talagalay in laga neefneefsado marka dadka lagu qariyaa adoo alcamu gadaal markaan joogo gabadhii marka labada lugood baa saa ugu kala qabtay marka labada lugood saa ugu kala qabtay gabadhii ka umeysay markii ka umeysay iyo noqotay arriga dhan waa wada xumaay kadib waxa dhacday gaarigii baa gaari markuu xumaraya gaarigii baa gargaraacnay gaari markuu xumaraya meel xaraa oo kulul buu maraya kadib gaarigii baa nala istaajiyay ilaa maanta dhan markaa gargaraacay markii ilmihii naaqnaha la arkay baa la istaajiyay markii la istaajiyay gaarigii baa gabadhii kala degnay booyadii kor daboolkaana laga furay waa ka degnay hoos markaa tagnay marka har yar bay samaynaysaa booyadu Soomaaliya arag oo ay dhanka qorax u baahan tahay dhanka kale har yar ay samaynaysaa meeshii waa maro u gogalnay gabadhii koomay gashay kooma goortay gashay oo gabadhii meeshii aan u gogalnay waan seexinay waan ilmihii yarkaana gabar kale haysay
وانا دور دليرة الصومالية وعندك إلا أفر إلا صدق ملاس جان ويحكي إلا الصومالية سفر الصومالية وكل رنا دي واحد عظيم قبل ساعة بار مش جوه هني ويسون نحو ويدي ويسون نفسه ويدي ويهدي ويدي تطلع هو ويني إذا كان حواء باقي أنت تدي مركز من نفسي كبح وأمور رعد الدوتي عاصمات قف مركز سواء في عنو سنهلين أو سنخترهلين أو قف مركز اللي بحمل وقت عمر مير بوباين سوء اللي بهنا ونختار بوباين قبل ماشي وكره واحد عبار بمركز أنا يكون عرفتها سوق خبص إن جواب مرة لما تصير ماشي أنا مقالة كمان وين نفر كمان وين سحرق لا أو بنا ما قرأت. باي. كدي مركز سي اللي سويتش شيداني قبل إن نفس كبحية روح دي حدية بين دقائق وين ما كارجني وأسمه مريء يحاس هو حرامي. ماله فاكتة وقاستين. مال وسحروي بدل لا جاري اللي قلت لك إني واحد سمعك باور كم عيد ده حجله بدل لا يجوا ثاني بدل لا صار لك صار موقتها. بس هو حرني مركب حرني مش وقو أصلي بس سفر كي وسوق قادمني أنا حنا سوق لي حردي دورتها سوق لي وكسر بحضوري توم بريامر حال سحور لا تنبر وخصاصة أنت كنا سفر كي وسوق قادم مركب كو عاصمة ساعة ما بي ما أرنتي سوق بهي وأنا بالهلاين إيه أنا قوة وضع أنا على وطبع بويدي كل الله وتعنقي أول مركب هو حرة اللي يجربه قبل هو اللي يجربه gabadhii ilmaha haysay oo qaaday di awal hore soo kuma oran laba gabdhood oo Soomaaliya xagga iska soo raacnay gabadha dhimato aan jidka iska soo raacayno marka ilmihii baa la ii soo dhiibay ilmihii xanuunsan baa la ii soo dhiibay waxa la ilmihii saas laakiin ilmaha inta la ii soo dhiibin isagoo xirada ku jira ka hor baa soo gudbiyay arinta marka soo gudbiyay waxa dhacday ilaa waagaas oo dhan social media anu ay isticmaalo iyo page waaweyn oo Puntland kamid ah waa la soo wada dhigay arinta marka waxa dhacday ay xagga keenay ilmihii ana la ii soo dhiibay haddana ilmihii ana haya gacanta ana ku haya xaaladiisa caafimaad marka dambe waa ka soo dareysay saan ogahay horta dadka aan wada daawanaya arinta dhan waa wada ogaayeen say ahayd adoo alcamum arintii markii ilmihii aan meeshii keenay oo ilmihii aan xaaladii dhex imi ana waxa sameeyay lacag doon baa haystay oo la ii soo diray iban dhaqaalihii ku geliyay ilaa marka hore qofka intaadan waxaan dadkan Soomaalida tan aan la soo gaarin wixii waxa u baahan inaa koob adu xaliso moogtahay marka ana waxaan ku hayo lacag doon haystay lacagtii doonta waa ku qarash gareeyay yar dhalinyaro hadda saaxiibana ila joogo arinta ila wada ila ogaa bas arintii markaa wada xalinay arintii aan soo bandhigay oo wixii dhaqaalaha anigu aan ku baxshay oo aan jeebkayga kaga baxshay oo arintii aan Soomaaliya u soo bandhigo ay ilmaha ana hayo waana ka waalidkiisa ehelkiisana hal cidii gabar ay ka soo taariibteen hal ila raadiyo oo aan sidii aan hawshii ugu jiray ilaa waagi markaan arkay dad badan oo ila soo xiriiray laakiin de wax cadeen sax aanan wadan garanaysaa aan la wada xiriir waxa go'aansaday ilaa waalidkiisa saxda ugu helayo in aanu haysto oo aan koriyo aan meesha ku kafaalo qaado gabar ay u dhiibto ma garatay kadib marka lacagtii doonta maadaama aan isticmaalay oo wixii nuunihii aan ku celceliyay oo qarashkii aan ku celceliyay shalay ma darad loo dameyso aan dhakhtar geeyay arintii marka waxay raadaysaa jirta lacagtii doonta waa isticmaalnay safar baa rabaa inaan aado yurub waxay ii jirta waa 6 saacadood ama 7 saacadood oo aan bad fuulo ma garatay arintii uu keenay aduu alcamum isjiid badan kadib iyo arrimo dad dhahay waa caawinaynaa wixii markii ay isku soo duuduumatay oo wixii habeen dhoweed baa doon marka waxa doon baan aaday waxa la yiraahdo doonta soo goynta lagu raaco waa aaday doontii waa soo ogaaday waa soo duubay muuqaal baa ka soo duubay waa soo dhigay kadib waxa dhacay ninkii baa soo dadkii baa wax firsaas jirta markii wixii wax laga qaban waayay anoo iska tagay xabsi baa xataa galay xabsi waa ka soo baxay lacag $1 uga soo baxay inana uma sheegno xasaad wixii ku qabsaday laabtaada ku hayso ma garatay marka waxa dhacday doontii habeenkii yiraahdo ninkii carabka ahaa doomay ka wiilka soo laaban أنا دونتي قدام دومي قدام ويل كان هويس شيطة قبل كذا وقلم ويل هويس والله قبيل كذا ما قرني لو وقتي بس أرجعنا إنه قبض لا جد صحيح هاي لا جد رغوي لا جد رغوي لا جد ده التوبة كسر رعدين حاجات كسر رعدين حدودك يا حدودك ما قاعد معك وشكت ما الله ينهاك ترى يا
farxiyo ayay ku tiri farxiyo magaceedu dhammaystiran iima sheegin farxiyo uun bay ii sheegatay okay marka wax telefoon ay wadatay ima jirtaa markay dhimanayso annaga dhan dadka aan isla soconay iyo annagoo dhan waxana dadka tahriibka waxa lagaga reebay telefoonka adiis baan qaybta looga reebay intii la soo dhuumatana goondar baa looga qaadayay marka wax telefoon ma wadato annaga aan wadan xataa telefoon ma wadatid waxa ma wadatid waxa wadataa kaliya shay aa wadatid tilmaam shay waqti tilmaam gabar xoogaa caataa bay ahayd dadka xoogaa ani fiiskal ahaan xoogaa yar uu iga weyneed tilmaam caataa bay ahayd boodhiga tilmaam shay waqti boodhahan shay waqti aduu dharankayga aniga soo ma aragtid aniga meelahaas ii maraysaa aduu indhaha hal dhibic 69 hal dhibic 70 ilaa inahaas oo kale ii maraysay hal dhibic 67 ilaa aduu inahaas oo kale ahayd hal dhibic ay meelahaas oo kale ku maraysa manaag cad baa misbaa naag madow aduu midabka maariinka oo kale ahayd okay meelka caseen ilkaha dad ilig jaban baa jira moogta iligaas ma arag foolka foolka way jabneed laakiin inta iliga way casayd hal iligna way ka casayd iligna way ka jabneed iligaas way ka jabneed okay wejigeedu soo ahay ma weji oo wuxuu ahaa saan oo kale taa hadda wejigeedu mise weji oo ahay والله إني وجهي حوجا وعيلنا حواير وعيلنا هلي باصارنا وجهي أيضا لك عاطي هاي أيضا عاطي هاي ده إذا ما يقف قياسيس أدوك لبعتني اللح لبعتني تدور لبعتني شميرها أوكي وحي كولاك جبر عن صدر جبر مركز لنا جبر وجود مية هاي كل موقت بس جبر صدر شيء كولاك والله تام قياس كرو مشي كرو لكن ده قف دن يرا بيله كده ده ولا wada duruufaysan ya qofkii si sax ah ma qiyaas kadib moogta adiga dhanboor duur baa lagu seexinaya mashaakil baa ku sugan tahay ma arki qofkii ma qiyaas kadib waxaas una fiirin kartid waayo adiga laftirkaaga taariikh baa ku marna ma ku tiri unugaan abiis marna ma ku tiri unugaan abiis aaw unuga ma wadanin markii dhimanayse ما يمكن يا أولاد مرنا ما كانش يستعمل ماس أور يا أولاد وحسب بوتري waxaan weydiiyay markaan wada hadalnay waraysi baa xataa baxshay adoo 2 bilood ka hor baa waraysiga baxshay waxa ku yiraahday maxaa ku helo maxaa ku soo taariikhda ku soo galiyay kadib waxay u dhahay buu duruuf iyo arrimo noocaas ah soo galiyay kadib markaan isir warwarayso la hadal oo sheekayso bal wax ka ogo gabadha tan inaa wax ka qaban kadib ma iska laabatid iyo ku dhahay ku dhiirigelis inay laabato kadib hadalkiiba isaga kayso xidhaa xitiraaniyo aniga duruuf bay soo taariibisay waa ka ana hadda culays haysta culayska igala tag ana waxa saada gabar Soomaali maadaama ay tahay iyadu dhiban tahay yeesan dhib u arkin kalaamkaaga iyo hadalkaaga hadalkeeda dhan booda biiba u soo qaaday waa u kala miir biyo wasakh yahaayeen xogaa madaxa uga shushubay biiba siiyay waa ka soo tagaa meeshii raggi baa soo fariistay marka qofka la wada muqallaskiidu wada magaciisa taqaana مخلص كأني وذي مسيدة وذي أيده وذي ما قرني صورته مخلص كأيده وذي وحأوجان لها هدي سيجا صور راعي لها وأوجان لها بس مخلص عنه هان وحين أوكي مركا أنت إنه جهيز محا أخبار ضهش وحكو صو كل سو حريري كوي جبد إني هاي إلكتي إنك جبرت مش يكتي inay ilig yaro caslaheed ma sheegtay inay naag caata ahayd ma sheegtay inay dhirka adigu intaan kaale ekayd ma sheegtay inay afriiqi ku hadlayso ma sheegtay tilmaamaheed ma bixisay wali wallahi horta had tilmaamaheeda aanu ma sheegin awalna meelna kama sheegin laakiin waxa u qarinaya waxay ahayd inaa helo qof si astaanta saxda wata qofku soo wacaya moogta kuwa dad 9 sano ka hor ka maqnaayeen iyo 6 sano ka hor ka maqnaayeen bay soo wacayay iyo kuwa waqtiga kan ay ka maqan yihiin laakiin astaanta waxa uu ilaalin jiray awalkii hore wuxuu ahaa waxa iska ilaalin qofkii si sax ina u helo oo astaanta wata laakiin astaanta wax sax u wata sanadka waxa sanadkaas asaragteen
haddeer adu bishii saddexaad dhammaadkeeda inuu soo tegay dalka soo tegay ma sanadka hadda dhamaanaya haa 2024 hadda haa gabadha bisha kulanteen dee marka hadda soo tegayay markaasaaba safarkaaba isku soo aragnay bisha maad may ahayd abriil may ahayd may ahayd maxaa sakataa bisha haa saddexaad dhammaadkeeday ahayd bisha maajay ahayd okay Ethiopian kay ku tirayda may dhulkeedii waxa ma weydiinba dhulkeeda hadda ogaan lahaa waxa dhilaa caadi u dhexgal la wareysan lahaa marka ruuxaba iga fududaan lahaa dhulkeeda inaa weydiiyo marka labada kalmad saddex kalmad aan isdhaafsanay markay saa ka damiyay walaalay markay saa igu tiraahday waaba ka gaabsaday markay hadalka igu tiraahday nin fiican toogub ah marka dadku soo xirrama jiraan oo ku gabadhaas anaga inaga maqan tahay waxaas والله dad badan way jiraan laakiin dad astaamaha anu hadda aan xagga ka sheegay oo aan 10 kun oo daawana saan ka dhex sheegay oo tiri astaanta saxda wadata ama sawirkeeda wadata ma jirto hadda sawirkeeda ku tusii ma aqoon kartaa waa garan karaa maxaa dhacay astaamihii waa sheegay okay salahan 5 gabdhood sawirradooda ku soo bandhiga ma ka soo dhex saari kartaa hadda iyadii ku dhex jirto